السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي عاشكين ومر بعد الله كلنتي وناكسن نغو نبض يدينكو نبض هدان مر لبعد سكسور لابني إيما سدحات با أصحابي وحان مانتا إذين هيا قصو أنا هو إذين شيء هورا إذين كو شيء قصوي فربضن با إيقا بوحي إيقا دول بوحي يعني قدام وحان كبقي أيضا قصو النقض مرك أصحابي waxaan halka idinkaga soo jeedinayaa maanta qiso sheekadu markaan waa cabsi waxa waaye reer aakhiraad ghost idinkaga sheekeynayaa maanta horta intaan qisada u guda gelin asxaab waxaan ka codsanayaa inaad janaalka kicisaan janaalku waa janaalkiini waa janaalkeeni inaad liked iyo shared iyo subscribe kulli aad dhac ku siisaan baan ka codsanaa si aan ma aragtay dhiirigelin aniguna iigu noqoto maanta waxaan kaga sheekeynayaa qiso oo maxay ahayto waxaan dhihi jiray Soomaali waxaa lagu yiraahdaa reer aakhiraad iyo dad oo maxay ahayto waxa aan loo jeedin baan rabaa inaan kaga sheekeeyo ghost ugu dhaan Ingiriisku waxaa jirtay wadanka Austria baa waxaa jiray guri caan ah waa guri caan ah gurigaas wax degan oo alla abuurtay ma jiraan wax sheegtana ma jiraan gurigaas waa guri nooc min asaga dhanba sida uu yahay waxa uu ka dhisan yahay cidda dhistay wax sheegi kara mala ilaa hadda waa guri laga yaaban yahay gurigaas asxaabay waxaa la yiri mar alla markuu gabal ku dhaco oo habeenku la gaaro buu asaga dhan iftiin noqonaya iftiin sida meel maxay ahayd wuxuu noqonayaa magaalo suuq ku yaalo oo maxay ahayd saxmad ah buuq iyo wax ka yeeraya wad yaabaysan gurigaas habeenkii gabal ku dhaco mugdi carradu mugdi noqoto wuxuu noqonayaa asaga dhan sawaxan qalqalyaadkeeda wad yaabaysaa dadkii sida loo joogay oo xaafaduhu ay u shuxshuux lahaayeen oo ilaa gurigan yaa degan gurigan lama degana gurigan yaa degan maalinta haddii la fiiriyo weligiisaa cid soo gashay dhihi maysid guriga bas markii dambe dadka xaafadda communityga xaafadda deganaa baa shireen waxay yiraahdeen gurigan waa in aan dawladda u sheegnaa bal waxa ay lagu qabto cidda iska leh waa inaan ogaanaa waa baxeen communityga dawladda u tageen meeshii maxay ahayd councilka meesha laga xukumo xaafadda bay tageen waxay yiraahdeen annaga baqdin baa nala soo darstay gurigan baqdin baan ka qabnaa marka waxaa idinka codsaynaa gurigan in dad la soo dejiyo ama aad si un yeeshaan wax degan iyo wax aan weligaan ku aragtoona ma jiraan dawladdii waa isfiiriyeen saas mi aha waxba hawlwelina because waxay nacaayeen dadkan inay xaafadda ka cararaan baqdin daraaddeed waa taqaanaa dad communityga xukuma iyo waxay jecel yihiin shacabkooda inay qanciyaan okay de intaas le maahno ha anagaa naqaan waxaan samaynayno weega kadib baa gurigii waxaa lagu sameeyey dib u habayn waa la dhisay gurigii waa la dhisay maxay ahayto waxaa laga dhigay guri kaan iska arag bus iyo madoobaad iyo asaga dhanba alwaaciisa madow iyo dhagaciisa madow buu ahaa gurigu waa la nadiifiyey dhagka rinji ka hal iska arag wuxuu noqday guri qasri oo intaasoo qoys ay degi karto bas gurigii sidii markii loo qurxiyey ay maxay tahay dawladda sidii u qurxisay communityga meesha xukuma councilki baa la kireeyey waxaa la yidhi waa kiro qiimo jaban baa weliba lagu kireeyay gurigi dadka waxaa la yidhi danyarta ah oo dhaqaalahooda hooseeya gurigaas ha laga kirayo qof maxay ahayto shaqo fiican haysta oo ma aragtay oo mishaar fiican soo galaya ma laga kiraya dadka low income ka ah baa degaya guryahaas okay dadka masaakiinta Soomaaliga ku farxeen arrintii gurigi waa la degay marka la degay gurigi waa la kireeyay 3 qol 4 qol waa loo kireeyay sida markii loo kireeyay baa habeenkii koowaad ba intaan la gaarin kii labaad baa wixii cida deganaa hal mar banaanka ayaga ordayo carruurtooda gacanta ku wada dhay la kala farxaday war maxaa dhacay war maxaa maba mid fiiriya waa la waayay mid fiiriya waa la waayay gurigu wuxuu ahaa ilaa iyo 4 dabaq camal isdul saaran wax isfiiriya waa la waayay dadkii laamiga taagan oo carruurtooda gacmaha ka haysta bismillaahi raxmaani raxiim allahumma najayna bas dadkii banaanka markay soo baxeen baliiskii baa la wacay baliiskii baa yimid maxaa dhacay maxaa ku dhacay isdajiya wax dhiba ma jiraan maya qof walba wuxuu soo istaagay nakata
inaan gurigaas galo caawa lagama yaabo ama dowladda meelaha na geyso ama waddadaana seexanayna caawa marka arrinta markay halkaa marayso baa ninka biliiska xukuma wuxuu yiri ahla istajiyo yaa la iswaalin dadkii buu kaxeeyey meel iskuul ah familiadii oo dhan buu wuxuu soo baxa maca carruurtoodii baabuur baa loo keenay meel iskuul ah ba habeenkii la seexiyey waagu markuu baryey ninkii maxay ahayd kansalka xukumay baa wuxuu yiri raalli ahaada tartiib alaabtiina qaata iskuulkan soo dega bal arrintan baan baaraynaa arrintan iyada ah baan baaritaan ku samaynaynaa okay ninkii wuxuu u diray guddi wuxuu yiri bal gurigaas waxaa laga sheego bal kasoo salgaaro oo jawaab iiga keena guddiga isla markiiba dhacdhacdhacdhac waaba guri la yaqaano oo bacaan ah oo weligiisba aan la degin oo wax dhisa la aqoonin mucjisatu rabbaani waaba guri wax dhisa aan ba la garanayninba marka asxaabay adduunyada aynu dul saaranahay wax walba waad ku arkaysaa waana ku maqlaysaa guri aan la aqoon cidda dhistay guri aan la aqoon maxay ahayto meeshu ka yimid baa waddankaas ku yaala ilaa iyo hadda wax xitaa dib habeynta lagu sameeyey rinjiguba ka daadanayaaba allahuma najeynaa asxaabay barnaamijkeena caawa halkaas ayaan uga baxaya qisadaas aan la soo yaabay argagax leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu